بسم الله caawa waxaan halkan ku soo bandhigaynaa eedeysanayaasha horteena fadhisa oo saddexda ah oo aad u jeedaan oo meesha ay fadhiyaan waxaan marka hore arabnaa inaan u mahad celinno allah subxaanahu wa tacaala noo suurtageliyey na ajiibsiiyey noo awooday inaan qabanno eedeysanayaasha horteena fadhiya waxaan kaloo u mahad celinayaa dhammaan intay ka qayb qaadatay howlgalkii socday 26 saac bilowday shalay 8 saac iyo bar soona gabagaboobay galabta 10 saac iyo bar muddada intaas la eg waxaa socday howlgal dhammaan ummadda deegaankan joogta deegaanadan ku nool ay iska kaashadeen howlgalka noocaasa saraakiil askar dhammaan dadka deegaankan jooga waxaan leeyahay shukri cali waajib waa ku mahadsantihiin sidaad noo gacan siiseen sidaad noo garab istaagteen waxaan kaloo u mahad celinayaa saraakiishii ka qayb qaadatay howlgalkaas ugu horreeya taliyaha madaxtooyada xidig iyo saraakiisha kale oo dhinacyadeena taagan maamullada degmooyinka baxda iyo qaayib cada kibir ilaa cadaado odayaasha dhaqanka iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan ee deegaankaas runtii ma suurto gasheen macquulna ma noqoteen in gacanta lagu dhigo eedeysanayaasha horteena fadhiya haddii aysan ayagu aysan hor kacayn haddii aysan garabkeenna aysan taagnayn dhul isku weer 400 kilomitir ka badan ayay nagula meeraysanayeen saacadihii intaas la eg hal saac oo ka mid a ama hal daqiiqo oo ka mid a oo la istaaga ma jirto ayaguna istaagan annaguna istaagin howlgalkaas dhammaan ay ummaddaas ay ka qayb qaateen waa ugu hambalyaynaynaa waa ugu mahad celinaynaa waxaan si gooniya ugu mahad celinayna madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor oo aan saacad ama daqiiqad intii howlgalkaas socday isaguna aan ka maqnayn runtii nagu dhiiri geliyey na garab taagnaay wax alla wixii tasiiladan u baahnayn nala daba taagnaa waxaan rabnaa inaan u tacsiyeeyo eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen dadkii maxasta ahaay marasta ahaay bermigedada ahaay lagu laayey si xaqdarro ah loo laayey waxaan rabnaa dhammaan anoo ku hadlaya magaca galmudug inaan ka tacsiyeyno waad dareemi kartiin dadka halkaas fadhiya ood u jeeddaan inaan gabdhana laga dilin hooyana laga dilin odayna laga dilin laakiin ay tahay shirqoo la soo maleegay oo lagu subcadilaayo deegaanka galmudug barnaamijkaas rag wejiga soo duubtaya ka shaqeeyey waxaa la rabaa galmudug in la suurad xumeeyo waxaa la yidhaha in abnimo jira la yidhaahdo awal waxaa la isku diri jiray dadka rijaasha ah dadka xoolo dhaqatada ah dadka deriskaa la isku diri jiray oo laga faa'iidaysan jiray laakiin hadda mashruuc weyn oo foolxumo ah oo aysan kuwaanu fahmi karin meesha horteena fadhiya aysan fahmi karin ayaa lagu soo dhex tuuray ee lagu laayey hooyo iyo carruurteed waxaan rabnaa dadkaas ay ka dhinteen oo la xasuuqay horteennii fadhiyaan dadkiina dilay ciddii u dirtay ayagaa sheegi doona baaristaa bilaabo doona sharcigaa la horgey doonaa waxaan ka codsanaynaa inaad ku qanacdaan sharciga inaad ku qanacdaan ka codsanaynaa oo aysan dhicin in fal kii oo kale ah lagu jawaabo runtii mar labaad iyo mar saddexaad waxaan rabaa inaan u mahad celiyo saraakiisha hortiina taagan maamullada degmooyinka dhammaantood min cadaado ilaa iyo qaayib inta ka dhaxaysa iyo bulshadooda waalidiinta dhammaan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo
سجوني أنا مرة بعد مرة سدحنا وحنا مهد عندنا مدحوينها قلمي كنتي وأسقنا شقدا بقول كيف السجاش السجال قبتان مهد علينا أنا ما سنتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.